السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhow ku soo gudbinaa qisooyin aynu isleenahay dadka aad bay wax badan uga ogaan karaan oo ay baran karaan. Haddaba maanta waxaan idin soo helay qiso la yaab leh oo cajiib ah oo markaa wax badan aynu ka kororsan doono dhamaanteen. Haddaba qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka uu qoray qoraaga leeyraado Abu Talal al-Hamrani waxay ka dhacday dalka Masar magaalo leeyraado Isyot. haddaba qisadan magaceeda waxa leedahay qisadii taajirkii iyo faqiirkii saaxiibada ahaa. wax la yaab laha meeshan dhacaya waxyaabo aadan malaysan karin ayaa soo bixi doona. haddaba ila joog si fiican u dhagayso wax badan baynu ka faa'iidi doonaa. yaana warkaydii ku daalinin. qisadii waxay ka bilaabatay booliiska magaalada Isyot ayaa la soo wacay. waxaa la yidhi ninbaa halkan dhowr xabadood lagu dhuftay. ninkii ku dhuftayna wuu ka tegay isagiina halkan ayuu dhiig baxayaa. booliiskii iyo ambalaaskii waa la soo cararay. ninkii isbitaalka la geeyay xaaladiisoo garaab ah oo aad u liidata. ninka magaciisa waxa la yidhahdaa Xamdi. xabadaha waxaa ku dhuftay saaxiibkiisa ay nafta u dhaxaysa ee la yidhahdo Mucawad. booliisku waxay qorqoreen dhaqaatiirtu waxay yidhahdeen ninkan hadduu badbaado nasiib uu leeyahay 9 xabadood malaha waa lagu dhuftay dheh oo meel kastoo jirkiisa xabado ku taala. ninbaa bistoolad inta u qaatay wixii ku jiro ku dhameeyay. way isweydiiyeen marka booliiska labada nin maxaa ka dhaxeeyay Mucawad iyo Xamdi. qof kastoo la weydiiyay waxay lahayd sadiiqu ruuxi ahayd ruuxda kaliya u dhaxaysay. saaxiibtinimadoodu waxay ka soo bilaabatay yaraantood ilaa hadda ilaa saan. wala yaab maxaa ka dhaxayn kara cadaawadda intaa la eeg maxay. nin muxaqiq ah oo baara ah oo khabiir ah ayaa loo xil saaray kiiska. ninkaa weli ma dhiman waa nool yahay laakiin koomu ku jiraayo qallimaa lagu samaynayaa. kii kalaa la soo qabtay waa la xiray. ciddii wax ka ogeed sheekada la raadiyaa ugu dhow Mucawadka naaguu qabaa la soo qabtay. waa ninka lacagta le taajirka ah naagtiisana waa la soo qabtay. su-aalaa la weydiiyey. ninkii Mucawadka wuu xiran yahay. ninka xabadaha ku dhuftay oo maaragtay taajirka ahaa wuu xiran. gabadhii marka uu qabaa su-aala la weydiiyey. waxaa la yidhi maxaad ka og tahay qisada labadan. horta waxay tiri aniga waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo waxa dhacay ee aan goobjooga u ahaa. ahlan wa sahlan. aye soo tuurali waxaan meesha u joognaba inaan xog aruurino waayo. waxay tiri qisadii ka hadasha marka waxay leedahay Mucawad oo ninkayga ah iyo Xamdi noloshayda ma arkin laba qof oo isaga kalsooni badnayd. laba qof oo saaxiib haddii la yiraahdo isaga saaxiibtinimo badnayd. walaalaha isla dhashay mararka qaar aad wax u dhow xataa ma walaal dhaafay amaloo la isu aaminsanayna. laakiin isku magaalo ku dhashay Isyot. ninka Mucawad kale leeyahay ganacsadaha qoys taajir oo ka dhashay oo beero leh oo hanti leh. Xamdi isaguna qoys faqiir oo ka dhashay laakiin waa la soo qaaday mar walba wuxuu la noolaa la joogay la shaqaynayay oo uu la joogay ninka leeyahay saaxiibkiisa Mucawad. ilaa markii dambe Mucawad markii uu guursanayay leedahay waxa ka sheekeynaysa xaaskiisa ninkan kaalin uu ka qaatay. nima guurso gabar fiican waayo uu yiri okay waa iskuursan. kadib maxaa dhacay marka booliis dadka aan nooga sheekeynayso toos jeclaayeen kanay ahaayeen haye maxaa marka in intaas oo dhibaato in la isu geysto maxaa keenay. waxay tiri warka waan idin wadaayay suga haye. waxay tiri ninka leeyahay Xamdi wuxuu ahaa nin qalbiga ka xanuunsan. waa ninka xabadaha lagu dhuftay oo faqiirka ah
maxaa dhacay yidhaahdeen waxay tiri maalinkii lay soo guursaday ilaa maantadan ninkan xabadaha lagu dhufanayay ninkan igama harin anna waan qarinayo waxaan islahaa ninkaaga maadaama saaxiib uu yahay sadiiqu ruuxiisa uu yahay ninuu aaminay uu yahay labadooda ha isku darin ninkan fariimo aan jeclaysan oo iisoo qorayaa waxbuu samaynayaa kanuu samaynayaa anigaa ku jeclaa intuusan ku guursanin mucawad waxaas iisoo qoray annoo iska aamusi jirin laakiin markii dambe wax aanan ka aamusi karin ayaa dhacay haye maxaa dhacay wuxuu igu yidhi waxaan ka takhallusayaa mucawad ninkaagaan dilayaa si aan marka dambe aniga iyo adiga isu guursano oo fiirsada waxaan wax la yaab laha ka soo bixi doona meeshaan ila jooga adika anaa yaabay hortiinaan yaabay marka maxaa samaysay wallaahi waa ka qarin waayey tiri ninkayga waxaan u sheegay min bidaaya ila nihaaya bilowgii ninkan meeshuu igala soo qaaday ilaa hadda ninkaaga ka takhallusay umar intaasaa u sheegay mucawad markaa intaa u sheegay waaba qaraacmay wuu ka malaysan waayo saaxiibkay walaalkay ninkaan naftayda u huri lahaa ninkaan ceesho melis ka ahayn oo aan isla soo kordhnay ma waxaa igu samaynaya ma gurigayga iyo reerkaygu ii dabamaraya ma anuu idhahayaa waa ku dilayaa liajli naag darteed hadduu ii yimaada ifurina waa u furi lahaa saaxiibkay hadduuba saas u jeceliy haddaba anuu dilayaa haa waa noo taallaa xamdi waxma ma weydiin ninkan xamdi waxa lagaa sheegaa ma runaa ma beenaa waxba ma dheh ninkan baastoolado u sharciyeysanaa jira dadka ganacsatada iyo waxa kan iyo ah qaab nidaama jira baastooladii uu soo qaatay ninkanoo meel joogayta u yimid wax kale ma weydiin maxaa waxaas u samaysa ma dhihin waxay xabadaa oo ku jiray baastooladdu ku dhameeyey ninka sidaasuu marka wuxuu ku xiran yahay ninkaygu sidaasuu ku xiran yahay seekadana sidaasay u dhacday ninkaas isagaana qaladka iska lahaa ninka marka baaraha ah wuu dhagaysanaya okay yiri waa la waday gurigeeda ay ku laabatay ninkii xirnaa marka loo yeeray waa la weydiiyey waxa lasoo wuxuu dhahay sidii naagta u sheegto u sheegay naagteeda saana ninkan wuxuu yidhi damaanad ha lagu daayo maalinkaa kuu baahanaa imaanaysaa ninkii marka booliiska ahaa ee baaraha ah wuxuu yidhi waxaan haynaa jaanib waaxid hal dhinacaan haynaa waxa dhacay dhinacii kale oo dhibaatadu gaartay warkiisa ma hayno marka waa inaan helnaa ninkan inuu soo fiicnaado uu hadli karo ilaahay ha kaso bal sidii ay wax u dhaceen aan aragnay booliiskii waxay ku laalaabtaan cisbitaalka ninkii xaalkiisu yahay sidee yahay booliisay geeyeen si aan xataa wax dhibaataa oo dambe ninka loogu samayn albaabka uu ku jiro booliisa ilaalinaya habeenay maalin way isku beddelayaan maalintii dambe dhakhtarkiia wuxuu soo wacay baaraha marka waxaa la yidhahdaa usama haye ninkii wuu hadli karaa laakiin stiil weli waa tacbaan laakiin hadal wuu kaaga jawaabi karaa maskaxdiisuna way fiicantay okay wuu soo cararay baare usama wuxuu yimid cisbitaalkii ahlan wasahlan xamdi ahlan haye iwan sidee wax u dhaceen xabadda yaa kugu dhuftay markaasuu yidhi mucawad saaxiibkaasoo ma ahayn haa maxaa dhacay ninkan marka wuxuu leeyahay ninkan bistooladaan isla sifaynayn haye xabadda waa iiga fakatay baarihii wuu yaaban yahay kayf xabad fakatay waa hal xabo 9 xabadood mid lugta kaaga taallo mid dhegta kaaga taalla mid feeraha kaaga taalla ma waxaasaa xabad fakadaya ninkan wuxuu dhahay ani su-aal may weydiisa adiga haa ninkaas waa saaxiibkay wax aan u haysta male xabaddana waa aniga way ugu fakatay ninka
marka wuxuu yidhi maskaxdiisa ha baareen dhakhaatiirta ninkaan baarihii wuu yaaban yahay dadkan isaga ninkaa xabadaha ku dhuftay annagaa 9 xabadood ku dhufanay ay taagiin 9kii xabadood way ku dhacday kiiskaasaa u haysanay ay taagiin ninkaan wuxuu taagan yahay war ninkaan aniga waxba kama rabo qabaday ahayd bistoolada isla sifeeyeen baarihii wuxuu leeyahay Usaama ahaa kiiskan weligii mid la mid ah dhakhaatiirtii baaritaan ninkii ugu laabteen maskaxdiisa war ninkan waa fiican yahay booliiskii ku soo celiyeen hadaan 100% maskaxdiisa 100% waa fiican tahay ninkan marka Usaama soo laabtay wuxuu ninkii waraysi ku bilaabay isla intii uu sheegay ويا ورنيو سيداس أما يسنى هاي المي حمرك معود انتقبت البوليس انتقبتان محكمة سيس بجي كران نكاو حولي حبض ويقفك نكاو حبض مواستاني والله يابا بوليس كده اسكان صوتين نكي حقا اسكا في عناضي مركو حقا في عناضي مقالة دي اسيوطلو كسو قوري قاهرو اسو قوري حمدي cid wax ma weydiinin dambiga iga gashay ma dhihin dhibaata ii geysatay ma dhihin wuu iska soo guuray dadka isyoodna way yaabeen ninkii booliisku muxuu ku yiri ma garanaysaa maya la shaqaa soo socod booliiskii ayaab ninkii waa iska siita hawshiisu iska wataa sidaysa inaysan waxba dhicin oo kale inuusan nin 9 xabadood ku dhufanin oo kale isaga shaqaysta ninkii wax lagu dhuftay waa isaga guuray meesha waxba dhici doona la شكا soo socod markii cabaar la joogay booliiskii waa la soo wacay yaa soo wacay gabar kamid ah shaqaalaha beerta Mucawad waa ninka taajirka ninka xabadaha ku dhuftay ogow gabar ka shaqaysa beertiisa ayaa booliiska wacay waxay tiri waxaan hayaa xog xasaasi ah waxaan rabaa inaan idin imaado روي ما ودين والوين كيسكا أردت معود عن وركا ياتر أسامة الله على رسول أسامة ونكي كيسكا أو دم بباري أسامة هاي قبري سداوي وحيتر أنا وحرب أنا إذا شاو وحيد دوقلا ذيك على ذيك الربع هاي أنا وحقيقة ترتر مالين زوجة معود naagta mucawadka taajirka qabaa'iyad haye waxay ugu tiri ninkaagi xabsiga goormee laga soo deynaa ninkan naagtan marka beerta ka shaqaysa nin gaangistar qaba oo xabsiga marna kooyida marna soo baxa mar dadka dila marba wax hada ma nin saasa qaba waxay ninkaaga xabsiga ma ku jaa goormo soo baxa bilkadi markuu soo baxo ugu soo xiray lacag waali ah idin siinaa shaqo iyo qabana قبنا قفنا وشيء أفكار يا لقى مغلن هيه نكيج معود ودليا واضح حيتر ويا مركو صباحا بالكل السحر السينا عريت المكان قرق إمد واسعة واي بوليس كساسة وصوع أسامة نكي دب بارها ويا بيها شيء كذا وحن ماشن قدام وحن ملاي سوالي ليا بيه أسامة وحو أمر كبحي باريه زوجة معود مراقبة كاملة هالوصميون هلا إلى أيضا لن هلا صعود التليفون كذا الشركة يوحد من بوليسكو حد يستان أفر لا تصع ضدك أي مسج كأقريسو ضدك أي لهالليسو وحدا وإن بوليسكو أي أوغادان ناكتن صوبت نكن أي أدليسو صوبت ninkan xabadaha ugu dhuftay iyada kaliya masdarku yahay meesha ninkeeda warka siisay oo ninkan ana iska fujin waay ninkii inta carooday ninkii saas ku dilay sheekadan marka naagtan waxay tahay waa inaan soo baarnaawiin hal raadiyo shaqadii marka koox waxaa jirta mutakhasisiina tanasud aliraada waxay dhageystaan telefoonada adduunka oo dhan way ka jirtaa qofka marka la muraaqabaynayo oo booliisku ama qolo kale ay ku daba taagan tahay
teleefanadaada la dhagaysanaya fariimaha ay isu direysaan dadka kale lala soconaya bas waa lagu soo ogaanaya soo qabanaya hadii waxa aad samaynayso laakiin marka hore hadii lagu soo aado waad inkiraysaa wax kasta waxa la bilaabay marka teleefankeeda in booliisku ay la socdaan ay dhageystaan habeen kasta waqti dhexe marka la gaaro naagtan telefoonka ninaa kula hadla ninkaas telefoonkiisa way hayaan booliiska ay naagtan wacayso ninkaasi ayadu waxay ka sheekaystaan habka ugu fudud ee loo khaarijin karo ninkeeda ganacsadaha habka loo khaarijin karo ay ka sheekaysanayaan maalinta dambe marka waxay isla afkarteen ninkan habeen kasta wuxuu ku seexdaa kaniini hurdo waaye waxa u soo qoray maaragtay dhakhtarka xogaa habeen kasta kaniiniyaashaas ku seexdaa uu ku hurdaa kaniiniyaashaas oo wax badan ah caano cabay tir habeenkii caanuhu jecel yahay caanaha ugu dhex daraaliin caanaha ugu dhex daraa tiri kimiyaad fara badan kaniinigaas hadaa ka qaadato damage jirkaaga u geysana ilaa markii dambe uu ku dilo waxa moogtahay wax yar loo talagalay daawada hadii sideeda wax badan ka qaadato khatarteeda leedahay hadhow markii ninka la baaro jirkiisa waxa kaliya laga helaa maxay tahay kaniiniga hurdada ninka uu qaadan jiray dhakhtar u qoray warqadiisii dhakhtarka iyo daawooyinkii uu qaadan jiray guriga yaala ninkaas iska badiyay marka saas ku dhintay si farsamaysan loo dilay booliisku oo muraaqabaynayaan way dhageysanayaan waxa la yaaban yahay laakiin ninkan iyo naagtan sababta ay ninkan u dilayaan caawa marka sameynaya tir markuu soo hoydo caanaha markaan u diyaariyo caanaha uu cabo caanaha ugu sii qarinaya kadibna waa kaas booliiskii marka waxay isku aadiyeen waqtiga ay sheegtay guriga tageen guriga galeen ninkii oo already caanihii la cabsiyay ninkii waa la soo cararay isbitaalka la geeyay waa laga dhaqaayay islaantiisiina waa la soo xaray ilaahay amarkiis waxay ku guuleysteen dhaqaatiirta in markiiba dawada jirkiisa laga saaro la dhaqo naagtii waa la soo qabtay ninkii Usaama ahaa loo keen haye warka keen waa aamus maxaa ka rabtaa ninka ina u disho ninka se habeen kasta islaadi jirtay oo numberkan iskale muxuu way naxday meel laga jiray aqoon meel ku baxsata maraalin gabaray laakiin waxa la yaabanahay waxa aad waxan u sameynayso markay ogaatay in meel kasta laga helay in meel kasta laga soo xaray ayay waxay tiri warka oo isku duuduubanayay senator ahlan wa sahlan nasiya leeyahay waxaan sababta u sameysay aan baahnay waxay tiri horta ana ka dambeeyay ninka miskiinka ee xamdi in la khaarijiyo oo xabada lagu dhufto inuu noolaana ma aaminsanayna tiri markuu soo kacana inuu ninka dacweynayo dhibaato iskala dhici doonana u maleynay laakiin ninka khitad fiican uu sameeyay ninkaas warigiis wax dhibaato ay ma geysanay tiri xamdi waa la yaabay oo xamdigii aan lahayd waa ka hooyan waayay telefoonku igu dhibay kan igu dhibay ninkeyga waa dilaa uu yiri ninkii sidaas waxba soo qaatay ma weligay wax uga sameeyay ana waxaan oo dhan ka dambeeyay labadooda inay isku baabaanaadaba kii markii uu ka guuray meesha ayaa haddana waxaan go'aansaday ninkan inaan ka takhaluso si aan ninka hantidiisii wixii wax uga qaato nin marka waxa jiray tiri ninkan intaan guursanin ka hor aanu cilaaqo lahayn oo saaxiib ahayn ninkaas marka waa soo waday gurigan waxaan uga dhigay waardiye nin waardiye oo shaqadoona oo guriga waardiyeynaya villada ayaan ka dhigay markuu ninkayga shaqada aadana ninkaasaan shaqada ka cabaayay waxaana ku heshiinay inaan ninka ka takhalusno ninka numberkan iska leh waa cashiiqeygii hore tiri ninkan caashiqsanaa hore ninkan intaan guursanin waxa dhan waxa u sameeyay ninkan inaan ka takhaluso waxa sameeyo booliiska afka gacmaha saartay haye hatta waxay tiri ayadoon hawshii dhamaan
أي شغالي سيداسي نقطتين على لبودي محكمة دي على جوالح نك حبسي قالوا بحر معود كايمن نكيد نافتي دي محله حر محل عي محل هالليسي ورنيه وحبد مؤيدالين هاي هرت نكي حمدي أها إنا هذه سدواي نكا صحابة الصبي ناكتا ساس وياهم إلا نكا وحلال نايم محول نكا الحبضو يقول فتوني هواي أفكيسا سوق من واي نكي ساحب كيسها noloshiisa wax badan ka qabtay caawiyay inuu yiraahdo idilay raganimada iyo aqliga iyo daacadnimada uu xabdi sameeyay bal fiiri wax la yaab la Soomaa ninkii waa iska ooyay Macawadki saaxiibkiisa waxa looga dhigay cadawgiisa oo fiirsada naagtii waa la qabtay ninkii mucaashiqeeda ahaana oo saaxiibkeeda ahaana ayadana waa la qabtay waxa lagu tuuray xabsiga isku day dila lagu xukumay xabsi daa'in asagana dhowr sano lagu xukumay sidaas ninkii marka Macawadka muxuu sameeyay magaalada Qaahiro wuxuu ka raadinaa xamdi cafi inuu yiraahdo soo raadinay xamdigii hore xamdi marka dhibaatadii rasaasta ay u geysatay xidmaha qaara dhibaato noqday jirkiisa qayb kamid ah naafa لا حول ولا قوة إلا بالله نكي وتغني وسكك عافيين نو أنا جو حلو ولي وحكوا مصاري أنا كو خيامنا حسابتي ومجري والله يا برا مركا حبض يقول فت بوليسكي يكرت هذا سؤالي ويدينا أنا وأودي وصاحب كي سقسد وحبض يقول فت أنا عراب مكا صايري سداسي وحبجران حبضه أنا جو سمعيني أنا بس صورت يقول عن بوليسكي وكنت ذيك دعوة المقاوعين كان مدحو كردون كذي والرالي قري وحبكو ما يستوي marka waxyaabaha laga baranaa sheekada maxay qissa kasta waa inuu wax ka baranaa waliga qof kugu dhow haduu ku yiraahdo qofkan waxaas kugu sameeyay hal la boodin qofka bini aadamka iska aad ilaahay ka baq qofka iska hubi walaalka wax ku dhihi kara xaaskaaga oo jeeda ninka xaaskiisa ku tirisaas ninkii saaxiibkiisa ay ku dirtay ma waraysan asagu ma u koorgalin baaritaan ma samaynin waxba ma baarin ninkii iska dul dhacay marka ogaada bini aadamka wax kasta ka suuragal waliga qof bini aadan ayaa lagu tirin hadii lagu yiraa ninkan waxa su ka sheegay ama ninkan inuu ku dhibaateeyo rabaa iska jir hadii lagu yiraahdo ninka ku sheega ogo waa bini aadan wuxuu rabaa ahaa ninkan iska hubi ilaa adiga aad idhahaaga wax ku aragto ama ninkan aad ku aragto falki isagoo ku jira markaas aamin waliga qof bini aadan ha u dhibaateynin qof kale hadalkiisa ha u dhibaateyn adoon iska hubin wax badan ka baranay Soomaa adikuna bal fakarkiina aragtidiina noo soo qora qisadeena toddobaadkan